بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay habka salaada janaazo loo tukadayo maadaama ay baryahan geeridii ay badatay muslimiinta masaajidadiina ay xiran yihiin laga yaabee maaragtay qofkii geeriyooday in dad ehelkiisa ilaa iyo 5 qofood kaliya in la yiraahdo waa aasi kartaan marka sidaa darteed in badan waxaa dhici karta way og yihiin in salaatul janaaza ay jirto afar allahu takbiirna inay tahay laakiin maxaa takbiirta lagu akhrinayaa takbiirta afarta takbiir waxa weeye waxay u dhigantaa takbiirtii barakac ay u dhigmaysaa salaada nabigeena sallallahu alayhi wasallam noo bayaaninayo xukunkeeda waxa weeye waa fard min furuud alkifaya waa waajib aan laga tegi karin laakiin oo kifaaya ah haday dadkii qaar ay maaragtay tukadaan qaarka kale way ka dhici waajibku uu ka dhacaya xukunkeeda nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas ayuu inoogu bayaaniyay sidaas ayuu nabigeena inoogu bayaaniyay sallallahu alayhi wasallam idan salaada janaazada fadaa'il bay leedahay ay u leedahay qofka mayidka iyo qofka nool labaduba fadliga nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyadoo nagu baraarujinayo inana raboodgelinahay arrinka iyada ah ayuu inoo tilmaamay mayidka siduu nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiis ku yiri ma min rajulin muslimin yamuutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allah fi oo kama qala nabiga sallallahu alayhi wasallam hadduu nin geeriyoodo oo muslim ah ay u istaagaan janaasadiisa 40 raga oo aan ilaahay waxba la wadaajinin shay haba yaraatee ilaahay wuu ugu shafeecayaa maalinta qiyaamo yaa ugu shafeecayaa 40ka iyaga naam taa waa faa'iidada mayidka ama qofka nool faa'iidadiisu waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka raaca janaaso oo muslim ah asagoo rumaysan kana ajir dalbanaya Allah yaa ku tukada yaa ilaa laga aasana yaa maaragtay la jooga isna wuxuu leeyahay ajir oo la mid ah laba ajir buu leeyahay ajir salaadii oo mid ah iyo duugtii oo mid ah taasuu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam biqiraatayn kull alqiraat mithl al-uhud marka qiraadka waxa way ajirkii wuxuu la mid yahay halkii ajar buurta uhud madiina ku taala qofkii tagay baa yaqaana arkay marka idan salaadii oo buur ajirkeeda aad heli iyo duugtii oo buur ajirkeeda aad helaysid idan marka waa faa'iido qofka mayidka iyo qofka noolba ay ka helayaan waa fadliga gaarka ee salaadaas janaaso ay leedahay ku dheeraan mayno marka insha Allah taala waxaan sidii salaadii marka loo tukan lahaa awalan horta in niyada la soo xaadiriyo inta la niyoon waxa weeye iyada ahkaam iyo aqwaal badan oo culimada ayaa jiro maaragtay horta meydka yaa ragga intee laga istaagayaa ma dhexda laga istaagi ma xabadka laga istaagi ma madaxa laga istaagi marka culimada fuqahada imaam Abu Hanifa imaam Malik imaam Shafi'i imaam Ahmad ibn Hanbal يعني walba ra'yi gooni buu leeyahay marka maadaama Soomaalida ay Shaafiiciyada ay u badan tahay
biidni illaahi tacaala shaafici wuxuu qabaa madaxa laga istaagi, dhinaca raasigiisa ayaa la istaagayaa. hadday haween tahayna garbaheeda ku aadankiisa ayaa laga istaagi. aqwaal kaleo yaa dhexdaa la istaagi, yaa oranayso xabadka xaggiisa la istaagi, iyadana waa jirtaa. laakiin ma'muunka qofka imaamka le weye, taa waxay qusayso waa imaamka qofka salaada markaa tujinayo meeshuu istaagayo. ma'muumiinta ayagana waxaa aada u fadli badan in safafka ilaa iyo 3 yaa in laga dhigo oo la isdaba istaago. walow hadda maanta 5 qofood hadday ku tukanayso 2 iyo 2 alaalis dhinac istaagi, 2 iyo 2na way ka dambeyn. haddii saf 3aad la heli karana waa kaba sii fiicanba. sufuufta ma'muunka waa sidaa. marka waxaan u tilmaamahayaa meesha laga joogsanayo qofka ma'muunka oo ma aha, waa qofka imaamka noqonahayo weye. inuu marka hadduu rag yahayna inuu madaxa ka istaago, hadday haween ay tahayna inay garbaheeda yaa ku aadankiisa inuu ka istaago. nacam, marka waa niyoonaya, niyadduu la imaanahayaa isagoo niyoonahayo in uu ma aragtay salaad janaaso yaa inuu tukanayo ayuu niyadda gelinahayaa. ku dhawaaqi maayo, talafud ma laha, balse niyadda ayuu ku qabanahayaa. waa intuusan allahu akbar dhihin, waa niyoonahayaa inuu meydkaa inuu ku tukanahayo yaa ama janaasadaa inuu ku tukanahayo. allahu akbar markuu yidhaahdo waa takbiirta koowaad maaragtay uu kor intuu gacmaha u qaado allahu akbar uu oranayo. marka uu yiraahdo imaam shaafici raxmatullah caleyh wuxuu qabaa wax istiftaax, yani furasho maarata subxaanaka allahuma bixamdika tabaarak ismuka watacaala jaduka maya, sidii salaadaha kale maya. wuxuu qabaa allahu akbar acuudu billahi min ashaytaan arajiim in faatixada la akhriyo. isaga iyo imaam axmed ibn xambal tanay qabaan. isheeg aimadan kale abu xaniifan jeclahay, yaa isaga faatixada akhriska ma qabiyo, laakiin istiftaaxa waa qabiyaa. faatixa yaa xanafiyada faatixa ma akrinahayaan. teeda labaadna markii allahu akbar la yiraahdo gacmaha xabadka ayaa la saarahayaa oo midigta ayaa bidixdada la dul saari, oo midigta ayaa dul mari. marka allahu akbar markii la yiraahdo yaa oo xabadka la saaro, imaam shaafici acuudu billahi min ashaytaan arajiim faatixada in la akhriyo ayuu maaragtay qabaa. badel abu xaniifa uu qabo inaan faatixa la akhriyin. nacam, istiftaax iyo maaragtay faatixa la-aan. kow, takbiirta labaad waxa weeye in salli ibraahimiya. salli ibraahimiya waxa weeye ataxiyaadku markaynu akhrinayno oanu ku salinayna nabiga sala allahu alayh wasalam, salligaas salli ibraahima la yiraahdaa. waxa weye allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamed kama sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلي قاس يا صلي إبراهيم آية اللي هذا صلي إبراهيمي وتكبير تلبات الله أكبر. مركم إمام الشافعي مروا البو الله أكبر لدهايو إن قعمها سر الله قاضو وحبت كل قصة عليه أي أقوليه بين أي حنفية مركه هور الله أكبر تور بانا أنت كله ولسي دين هيا وما ركتي تكبير تكله عطكله كر لو قاعد هيا ما هنا قعمها لما قاضي. لكن إمام الشافعي يا إن أفرت التكبير إن أفرت الجرب إن قعمها كر لو قاضه كر لو قاض. تكبيرة اللي بعد مركه حنري يا صلي إبراهيمية. صلي إبراهيمية
ayaa maaragtay la akhrinaya oo ah allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima inaka xamiidun majiid allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima inaka xamiidun majiid. marka waa takbiirtii labaad ayaa inoo dhammaatay. tii saddexaad, midda saddexaad iyadana waxaa loo ducaynahayaa mayidkii ayaa loo ducayn wixii wanaaga oo maaragtay anfacahayo aakhiro ayaa loogu ducaynhayaa. waxaa ka mid ah allahuma akfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nuzulahu wawasic mudkhalahu waqsilhu bimaain wathalaj وبرد واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خير داري وأهلا خير أهله وزوجا غير زوج من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار ayaa loogu ducaynhayaa allahuma arxamhu wacaafihi wacfu canhu. taabaa loogu ducayn inuu ilaahay subxaanah watacaala uu u dembi dhaafo, u naxariisto, inuu ilaahay cafiyo ka dhaafo xaggiisa wixii dembi ah, ilaahay inuu dejiyo meel wanaagsan, degaan wanaagsan, ilaahay inuu qabrigiisa u waasiciyo, inuu ilaahay maaragtay gafafkiisa iyo dunuubtiisa uu kaga dhaqo bimaa'in wa thalajin wa bard, biyo iyo baraf iyo bard. bardka waxa weeye aroorta hore maaragtay qabowga yar la socda maarata dhedaan nidhaahna ilaahu kaga dhaq baa le, maxaa dembiga aada buu u kulul yahay. ilaahu maaragtay sidii wanaqihi min alkhataayaa, ilaahu maaragtay gafafkiisa ilaahu ku tir sida kamaa yunaqa athawb alabyad min addanas, yani go-a cad sida maaragtay waxa wasaqda ee maaragtay oga muuqanahayaan in looga tiro oo kale ilaahu uga tir yani dunuubtiisa. ilaahu ugu bedel daar khayr ah daartii uu ka tegey, aqalkii uu ka tegey aqal wanaagsan ilaahu ugu bedel, ehelkii uu ka tegeyna ehel wanaagsan ugu bedel, xaaskii uu ka tegeyna xaas wanaagsan ugu bedel. kana ilaahu ilaali fitanka qabriga iyo cadaabta naarta ilaahu ka ilaali. intaa waa ducada mayidkii loogu ducaynhay. marka meesha waxaad soo gelayso hadday qof dumar ay tahay iyadana seebaa loogu ducaynayaa. waxa weeye allahuma akfir laha warxamha wacaafiha wacfu canha waakrim nuzulaha wawasic mudkhalaha waqsilha bilmaai waalthalji waalbarad wanaqiha min aldunuubi waalkhataaya kamaa tunaqa athawb alabyad min addanas. iyadana sidaasaytii ayaa maaragtay loogu ducay allahuma abdilha daaran khayra min daariha waahlan khayra min ahliha waadkhilha aljanna waacidha min annaar ayaa laleeyahay. laakiin iyada zawj looguma darahayo, maxaa hadday ninkii qabay ay hortiisa geeriyootay, ninkaa unbaa aakhirana ninkeeda uu ahaanayo. laakiin gabadhii 2 iyo 3 guursatay, joyceka hadhow xagga aakhiro waxay leedahay kii dhanka diinta ugu wanaagsanaa inay doorato. laakiin xariga ugu dambeeya u badi in uu maaragtay qofka xarigiisa ay ku dhimatay inay zawjkiisa noqonayso, allahu aclam. nacam, iyadana sidaasaa loogu ducaynayaa. waa tii saddexaadaan filahaya. midda afaraad waxaa loo ducaynahayaa jamiic amwaat almuslimiin. jamiic amwaat almuslimiin ayaa loo ducaynayaa sida nabiga sala allahu calayhi wasalam ka soo aroortay annahu kaana yaquulu cindamaa yadcuu lilmayit
مثلا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. إذن دعadaas oo caam ah yaa mid nool iyo mid dhintay, mid jooga iyo mid maqan iyo mid yar, mid weyn, mid raga, mid dumara, mid ilaahow kii aada noolaysana ilaahow ku noolay islaamnimo dusheed, ilaahow kaad oofsatayna ilaahow ku oofso, iimaan ku oofso, ilaahow hanaga xarimin yaa ajarka yaa maaragtay meydka laga helayo yaa walaa tadilana bacda, ilaahow gadaashiisana hana lumin ama hana fidnayn. idan waa takbiirtii afaraad. kadibna waa la salaama naqsanahayaa oo waxaa weeye yusallim almusalli tasliimatayn, laba oo midigta iyo bidix. assalaamu calaykum waxa weeye assalaamu calaykum, assalaamu calaykum, labada bidix midig. assalaamu calaykum waraxmatullah, assalaamu calaykum waraxmatullah. intaas iyadoo kooban weeye salaadii. wixii aan asiibay famin allahi subxaanahu watacaala, waxaan gafay faminii wamin ashaytaan. as'al allah an yakfirnii waiyaakum. sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed. ilaahay hanagu anfaco, halagu dadaalo in la barto wixii waajib ah oo kitaabka iyo sunnada in la barto, qofkana uusan ilaahay uusan ugu dhowaanin jahli. ilaahay jahli inaadan ku caabudin iyo malo. wax malo saanan malaynayaa isaana maya malo. ilaahay wuxuu yidhi ina adanna laa yugni min alxaqi shay-a. malada waxa sugan yaa kama deeqtoomayso. malo ma lagu caabudi maayo ilaahay subxaana watacaala. yaqiin baa lagu caabudahayaa. ilaahay waxaan ka baryahayaa أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.